maanta magaalada Kismaayo ka furmay shir loogu gogol xaarayo shirweynaha dib u heshiisiinta ee gobolada Jubbooyinka oo 16 bishan ka furmaya magaalada Kismaayo kaas oo ay isku arki doonaan dhammaan beelaha ku dhaqan gobolada Jubbooyinka. qaar ka mid ah dadkii kulankan ka soo qayb galay ayaa ka warbixiyay sida ay u arkaan shirkan dib u heshiisiinta ee wajigiisa hore maanta laga furay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. dadka meesha oo loo yimid oo dib u heshiisiinta annaga beesha jareer weyn oo noogu bilaab noogu furi horta aada uu qabtay aniga shariif marka waxa hadalka loo dhameeyay dadkaayna odayaalkaan siyaasiyiin waa ka dhan waa dhamaaday annaga waxaan diyaar u nahay nabadan diyaar u nahay isku xiranaashada diyaar u nahay horumarkii oo dalkaan ugu heli lahaa diyaar u nahay haddaan nahay habeenka Soomaali nabadan ma beesha leelkase waxaan aaminsanahay inaan noqon doono gacanta midig ee dib u heshiisiinta sabab badan oo jira oo kamid ah annagu beelaha Jubbaland waxbay kala tirsigay dib u heshiisiinta maanta oo qabanayo 25 sano ee soo dhaafay wixii dhexmaray annaga 25 sano ee soo dhaafay aanuna laba sano ka mid ah orodka ka qayb qaadanay laakiin 93 baan hubka dhignay beelaha Soomaaliyeed nacafis weydiisan wayna nacafiyeen beelaha Soomaaliyeed. gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta gobolada Jubbooyinka Cabdi Baaley ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka ay u socoto qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta ee beelaha Jubbooyinka iyo kulamada hordhaca ah ee hadda ka socda magaalada Kismaayo. ay la tahay shirkii dib u heshiisiinta gobolada Jubbooyinka 16 bisha September oo furmaya waxaana ka soo qayb gali doona sidaan rajeynayno madaxweynaha dowladda federaalka ayaa furi doona waxaan marka salaada anagu dhanka waqooyi bay noo timi koonfur bay ku dhamaatay koonfurtii baan joognaa nabad inay koonfur ka bilaabato waqooyi u dambaysa rabnaa inaad gacan idinku siinaan rabnaa maanta kaalintiini baa isugu wada yimid kaalintaad leedeen way waxaan ka wada hadlayno diinii baan rabnaa inaan idinla cambaalino idin garab siino idinkala shaqeyno hadee kolley waxaan hayno waa shaqadiini waxaan idinku yeernayn waa shaqadiini haddii alla raalli ka noqdo inaan ka wada shaqeyno si saraaxad leh Soomaalinimo deegaannimo oo mas'uuliyad inaan wada shaqeyno rabnaa waa mahadsantihiin deesaanka soo qaadinaa jiri xasanaad Allah idinku siiyo waxa dadka idinku hormariyay kolley waad garan kartiin waxa tihiin waay هذا جريروين أورتين إنت كبح تذكر حاجة إيدك وعشان حصل مرحلة بمشي تذكر سيد وكلام مدني إنه وفر مري تذكر هذا بدن وخريعة وط دي ما هو ديجان فكين تاسنا وحاوا يعني وحد متوسطين واي كسبتين وما سنتي سلطان وحجرت كينا هذا شركين ونوع حرية هاي نوبلنا هدي الله عنك نوبل 16 bisha wixii hadee barnaamijkan anaga idin soo gudbin doono hadii waa maasatay intaas ogaanaysa Mas'uud Cabdullaahi Aadan Somali Channel magaalada Kismaayo.